سالكا سبل المعالي مخلصا ترجو. waxaa si cajiiba isku waafaqay xirfadaha khubarada caalamiga ah ay soo bandhigeen iyo xirfadaha lagu barto barnaamijka xirfadaha guusha nolosha. رفعة منزلي شمر وكن يا أمتي عهدا بأن أتعلم فعلو شأنك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مدنيال داوديال كسود وهذا waxaa maanta ii suurto gashay inaan booqdo xafiiska akademiyadda hagaag ee hogaaminta iyo horumarinta oo aan waraysi ka qaado gudoomiyaha akademiyadda hagaag ahna mid ka mid ah tababarayaasha barnaamijka xirfadaha guusha nolosha Ustaad Mascuud Weheliye. aad iyo aad mahadsantahay Ustaad, waqtiga qaaliga oo aad noo hurtay. waxaan jeclahay doorbiga doonale ka noqdo in isku weydiiyo su'aalo ku saabsan akademiyadda hagaag iyo barnaamijka xirfadaha guusha nolosha. su-aasha ugu horeysa ee aan ku weydiin doono waxay tahay waa maxay akademiyadda hagaag? بسم الله الرحمن الرحيم. هذا وما سنت على فاتح رنتي جزاك الله خير. سيدا برامجنا هرمرنتا ديار وقتها إن برشلونة الصومالية أدو جارسيسو أكاديمية هجاج هجامنت هرمرنتا وأكاديمية رنتي يعني آد وقصة ما يسا أرمها كسابسن هجامنتا مامولكا هرمرنتا آدمية. أكاديمية هجاج وحلو سمية in ay bulshada Soomaaliyeed si guud ay u hormariso gaar ahaan dhalinyarada Soomaaliyeed. waxaa jira barnaamij la yiraahdo horumarinta aadamiga. barnaamijkaas waxaa loogu talagalay in lagu dhiso 30 sano ee soo socota 100,000 oo dhalinyaro ah in lagu soo saaro 100,000 oo leh xirfado hogaamineed iyo akhlaaq wanaagsan, kuwaas oo aan rajaynayno inay noqon doonaan badbaadada bulshada Soomaaliyeed, inay badbaadi doonaan aan rajaynayno insha Allah taala. هذا ما سنت أستاذي محوية برنامج كان قبضة براه بوشة الأولى على حفظها بوشة النلوش. برنامج حفظها بوشة النلوش رنتي وبرنامج آدي وقيمة بدن وأكاديمية هجاج أي باللوضي لبضة كون إلى باتين كودي بشي جولاي أيام صواب بالله دفعة دي سكر بعد نوات ماتي. برنامج كان وحوك كوبية هي سجال حرفضات أيوك كوبية هي سجال كاس حرفضات وسجال حرفضات اللون نقشدي لون دياري إن يسبدل القصة ميان مسكحة لليرد الصوماليات سي بوزيتيف أو من أكثر رنتي أيوة سميان. سجال كاس حرفضات وحاكمت مثلا بيرسوناليتي يقف الشخصية دي يهوينك إلهي سي إنه أجادو أيا كمدا وحاكمت سيدا وحلاقر الرايتين سكيلز وحاكمت فجارك هذا كبابلي سبيكينج وحاكمت إنه نلاش استراتيجية دي يقرشيه أوردن إلا سمايستو وحاكمت decision making iyo go'aanka sida loo qaato iyo processka la maro hanaanka loo maro oo dhan ayaa kamid ah. waa 9 xirfadood ee macallimiinta barayaasha wax baraya iyo goobta wax lagu barayo iyo materialka wax lagu barayo aad iyo aad looga shaqeeya oo qofkii qaata oo sameeyo isbedel dhab ah u sameeyo. lamid maahan meelaha مثلا lagu sheego seminars inay yihiin oo yani aan dadka iyagoo wax baraynin 24 saac laakiin haddana dhahay waxbaan ida baraynaa qaabkaas uma design garaysan. waxay u naqshadaysan tahay 4 bilood oo xiriir ah oo practical 60% ay wadato. practicadaas iyo theory-ga haddii qofku isla qaatana isbedel la taaban karo u sameeyo. barnaamijka waxaa runtii uu leeyahay xirfadaha guusha nolosha faa'iidooyin runtii aad u fara badan ayuu leeyahay. faa'iidooyinkiisa aad u badan yihiin laakiin waxaan ka soo qaadanaynaa 3 faa'iido ayaa runtii aad iyo aad ugu waaweyn. faa'iidada koowaad ee barnaamijka xirfadaha guusha nolosha dhalinyaradu ay ka faa'iidayaan dadka qaata waa ogaanshaha iyo horumarinta hibooyinka Ilaahay siiya. yani qofka hibooyinka Ilaahay ku manaystay ayuu ogaanaya kadibna waa horumarinaya. waa faa'iido la taaban karo oo uu ka faa'iidayo qofkii qaata xirfadaha guusha nolosha. faa'iidada labaad waxa waaye horumarinta iyo sare u qaadida awoodda maskaxeed oo dhalinyaradu ay leeyihiin. yani qofku wuxuu sare u qaadayaa awoodda urinta, awoodda wax qorista, awoodda qancinta, awoodda fahamka nolosha, awoodda negotiationka iyo wada hadalka. awoodahaas oo dhan oo dadka ku jira laakiin aan horumarsanayn meeshan xirfadaha guusha nolosha waa goobtii lagu horumari lahaay oo dhalinyaradu ay aad iyo aad sare ugu qaadan lahaayeen. faa'iidada saddexaad waxa waaye in uu qofku fahmo nolosha guud iyo taatikadeeda iyo sida loo guuleysan karo. sidaas darteed qof kasta xirfadaha guusha nolosha qaata waxa aad ugu fuudaanaya ula dhawaanaya inuu noloshii guud oo ku guuleysto, shaqo oo helo, hogaamiye oo noqdo, dadkii oo dhanba asiga oo noqdo dadka hormuudka u ah oo ugu horeeya inuu noqdo ay noqonaysaa. dabcan barnaamijka xirfadaha guusha nolosha
waa barnaamijyo hore u baxay dad fara badan ay ka aflaxeen dadkii ka aflaxana runtii ay aad iyo aad maaragtay isbedel nafsiya oo ballaaran ay sameeyeen haddana akaademiyadda waxaa ka socda isqoristiisa ayaa ka socda oo dufcadii saddexaad ayaa hadda la qoraya soo qofkii raba barnaamijkaas wuxuu ka faa'iidaysan karaa inuu akaademiyadda hagaag yimaado oo barnaamijkaas uu saas kusii qaata ayuu samayn karaa waaya waxaan filayaa dhallinyarada Soomaaliyeed inay ka faa'iidaysan doonaan waaya waxaa jiro khuburo caalami ah oo soo saaray xirfadaha ugu muhiimsan oo ay tahay in la barto sanadkan 2022 xirfadahaas maxay ugu duwan yihiin xirfadaha guusha nolosha waa su'aal runtii aad iyo aad u qiimo badan waa sax waaye 21 bisha December 2021 ayaa nin khabiir caalami ah oo la yiraahdo Scott Stieberg la yiraahdo ayaa journal mid kamid ah journalada ugu qatarsan dunida oo la yiraahdo CNCB ayuu wuxuu ku qoray shanta xirfadood ee ugu muhiimsan oo ay tahay dadku inay qaataan 2022 shantaas xirfadood wuxuu dhahay qofkii qaata wuxuu awoodi karaa inuu nolosha 2022 ay u noqoto nolol easy fudud ay u noqoto sababtoo qaabkii shaqooyinka loo helayo waa isbedeleen qaabkii horumarka loo isbedelay waa la bedelay shantaas waxa ugu horeeya problemka sida loo xalliyo go'aanka sida loo qaato istiraatiijiyadda sida loo dejiyo iyo loo degsado waxa kamid ah sida wax loo dhageysto iyo sida waqtiga loo maamulo laakiin waxa si cajiib ah isku waafaqay xirfadaha khubarada caalamiga ah ay soo bandhigeen iyo xirfadaha lagu barto barnaamijka xirfadaha guusha nolosha arintaas ayaa isku waafaqda si aan runtii aan caadi ahayn sababtoo ah shanta xirfadood oo khabiirkan caalamiga Scott uu sheegay waxay kamid yihiin 9 xirfadood oo barnaamijka xirfadaha guusha nolosha maaragta lagu barto arintaas runtii waxay fursad weyn u tahay dhalinyarada Soomaaliyeed in xirfadihii dadka khubarada caalamiga ah ay ka sheekeynayaan in la barto 2022 inay maanta diyaar yihiin oo akaademiyadda hagaag ay hayso oo qofkii raba daqiiqad kasta iyo waqti kale uu baran karo waa fursad runtii aad iyo aad u ballaaran way ugu dambeyn Ustaad Mas'uud maadaama aad tahay khabiir ku takhasusay horumarinta aadanaha iyo hogaaminta maxaa dhalinyarada Soomaaliyeed kula dardaaranayaan ama kula taliyeen runtii dhalinyarada Soomaaliyeed waa dhalinyaro aad u firfircoon oo wanaagsan haddii ay helaan tubtii iyo wadadii ay qaadi lahaayeen runtii hadday helaan dhalinyaradu waxay leeyihiin awoodo fara badan ilaahay qof kasta wuxuu ku abuuray awoodo ayuu ku abuuray laakiin nasiib darro qofka awoodihiisa ma garanayo sidaas darteed aad arkaysaa dad fara badan oo dhalinyaro ah oo badaha ku dhimanaya kuwa 16 sano wax baranaya oo shaqo aan hayn oo darbiyada iska fadhiya arintaas maxaa keenaya waxa keenaya dhalinyaradu inaysan lahayn xirfad ay ku shaqaystaan awood maskaxeed oo awoodihii ilaahay siiyo aysan maaragtay horumarsanayn satarta dhalinyaradu waxaan kula dardaarmayaa inay is horumariyaan oo tababaro ay qaataan oo maskaxdooda ay maalgeliyaan adduunka waxaa jira shayga ugu qaalisan qofka maskaxdiisa waa haddii marka maskaxdaada adiga wax ka bakhiisho xaggee kale ayay gelinaysaa soo dhalinyaradu inay maskaxdooda wax geliyaan oo tababaro ay qaataan oo isbedel ay sameeyaan naftooda ah akaademiyadda hagaag slogankeeda ama halkudhigeedu waxa waaye change yourself to change your world يعني isbedel naftaada ku sameey si dunida intaada kale aad isku u bedesho macna idan qofkii asugu aan isbedeli karin wax kale oo bedeli kara ma jira sidaas darteed dhalinyaradu waa inay is horumariyaan xirfadaha loo baahan yahay kuwa dunida hadda ay sheegan in waxaas in ay qaataan ismaal geliyaan kana qaataan meelaha ku takhasusa iyo dadka khubarada ah oo si fiican u yaqaana ay ka qaataan markaas waxaa noo soo baxaya jiil cusub oo aad iyo aad u firfircoon oo maskax leh oo xirfad leh oo aqoon leh oo qiimo akhlaaq leh kaas oo awood u yeelan kara badbaadinta bulshada Soomaaliyeed wayahay aadam Ustaad Mas'uud barnaamijkeeni ama waraysigeeni koobnaa ee ku saabsanaa xirfadaha guusha nolosha oo aan maanta soo booqanay akaademiyadda hagaag iyo hogaaminta iyo horumarinta Ustaad Mas'uud oo gudoomiye ka ah akaademiyadda sidoo kale kamid ah tababarayaasha barnaamijka xirfadaha guusha nolosha ayuu ka ahaa adna ka mid ah waqtiga qaaliga nasiisay وكما دعنا برنامج كنتاس أيوة سجوبنا هذا. وجزاكم السلام عليكم.